السلام عليكم. رمضان مبارك. walaalo adduunyadu waxay doonaysaa in lagu joogo wanaag iyo adkaysi iyo sabar. wanaag iyo adkaysi iyo sabar sidee ugu joogi kartaa walaalo? adduunyadu ma ahan sidaa mooda, ma ahan sidaad ka dhigata, ma ahan sida iyadu kaa dhigata way adduunyadu yay ku sidan, adduunyadu yay ku saban. wax yar ayaan ku nahay marti, waa laga socdaa, waa laga faaruqayaa, waa laga dhammaanayaa. adduunyada waa la wada og yahay, haddana waa laga jiifaa. maxay ku dhacday sidaas? adduunyada waa la og yahay in laga socdo. qof waliba isagoo og oo ku jiifo ayuu haddana adduunyada uu muujinaynin wanaag. badankeena dadku ma muujiyaan wanaag, badankeena dadku ma muujiyaan adkaysi, badankeena dadku ma muujiyaan sabar. adduunyada waxaad ku joogi kartaa waxay tahay walaalkayga iyo walaashayda iyo aniguba. adduunyada waxaan ku joogi karnaa wanaag, adkaysi iyo sabar. sidee ku heli karnaa inaan muujino wanaag, inaan muujino sabar, inaan muujino adkaysi? saddexdaas arrimood sidee ku heli karnaa? waxaan ku heli karnaa inaan annaga isdullayno ayaan ku heli karnaa. inaan isdullayno, wax waliba aan ilaahay subxaana wa tacaalaha aan tala saarana, inaan wax walba nala soo wajaho, aan ogaana ilaahay qadartiisa inay noogu imaadeen. inaan muujinaa sabar fara badan, xaalado walba oo kula soo gudbanaado inaad sabartid. markaad mujtamaca ku dhex jirtid inaad muujisid wanaag. haddaad xumaan leedahay, xumaantaada aad mujtamaca aada la dhex tegin. mujtamaca aad tusisaa wanaag, aad tusisaa sabar, aad tusisaa wax waliba oo adag adigana aad isku adkaysaa oo aad yeelataa adkaysigeeda iyo sabarkeeda. waxyaabo badanoo waxaa ku soo maraaya aad qaado karin, laakiin waa inaad naftaada wax waliba aada u dulaysaa. sabarka wuxuu ka qaraar yahay, sabir ayuu ka qaraar yahay. ruuxa sabrana wuu helaa sadkiisa, mar una wuu guulaystaa. laakiin haddaa adoo sabrin wax waliba aad rabtid in adiga sundulo kugu hoos fadhiistaan, ma kuu suurtagelaysaa? maya, ma kuu suurtagelayso. adduunyada wax waliba waxay u baahan tahay adkaysi iyo sabar iyo wanaag. mujtamaca markaad wanaajisid adigana wax waliba way ku wanaagsanaanayaan. haddaad mujtamaca wanaajinina adigana wax walba way ku qaraaraanayaan. marka walaashayda, walaalkayga, waxaa fiican inaan muujinaa wanaag. dadka kula dhaqanaa wanaag, u muujinaa wanaag. wax kastoo cariiri, ciil, dhib, faad, raaxo, wax walba na soo mara waa inaan u adkaysanaa. daruufahadaha, mashaakilada, dhibaatada, dulmiga, wax walibana waa inaan muujinaa sabar. intaas waa heli weyna soo maaha. waxaan ku heli karnaa inaan ilaahay u dhowaano. ilaahayna abuurtay aan barino, ilaahayna abuurtay aan asaga weydiisano, aan u dan sheegano, aan dhahno yaa raxmaan, yaa allah, yaa rabbi, nagu irsaaqa sabar. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka barino waan helaynaa. laakiin annaga waxaan nahay caasi ayaan nahay, ma barino. intaan barino way yar tahay. ilaahay wuu jecel yahay addoonka wax weydiisto. ilaahow rabbiyo, carabtu waxay dhahaan kalmatu dayiba sadaqa. kelmadda wanaagsan waa sadaqo. inaan hadallo wanaagsan ku hadalno waa mid ilaahay nagu jeclaanayo. wax waliba inaan u adkaysano, ilaahay subxaana wa tacaala wuu noo nabalaabaya. adkaysiga hadduu noqdo xanuun, hadduu noqdo baahi, hadduu noqdo dhibaato, wax walba haddaa u adkaysatid ilaahay subxaana wa tacaala khayr ayuu kugu bedelayaa.
haddii lagu dhibaateeyo, haddii lagu ceeliyo, haddii lagu cariiriyo, haddii lagu dulmiyo, haddaad sabartid ilaahay sabarkaaga wuxuu kugu bedelayaa jamiil. sabarku wuu wanaagsan yahay, adkaysigu wuu wanaagsan yahay, wanaaggana wuu wanaagsan yahay. wanaagga dadka wanaag aad kula dhaqantid ama wanaag aad tusisid waa shay qaali. hadalka wanaagsanna waxay la mid tahay adoo sadaqa la baxday la mid tahay hadalka wanaagsan walaal. hadalka wanaagsan adoo sadaqa la baxday la mid tahay. maxaa ka wanaagsan inaad dadka kula tacaamushid hadallo wanaagsan adoo hadal wanaagsan arkaysa maxaa kugu geeyay hadal xun? maxaad u raadsanaysaa hadal xun? soo qalad maaha walaalo, soo qalad naguma ahan annagoo hadallo wanaagsan u jeedno inaan hadallo xun ama hadalka meeshuu ka xun yahay aan ka raadsano. now ma fiicna midaas. ilaahay hana waafajiyo xaqa, ilaahay hana tusiyo xaqa. rabadaanka fadligiisa ilaahay hanagu soo hanuuniyo. rabadaanka fadligiisa ilaahay hanaga dhigo dad wanaagsan. rabadaanka fadligiisa ilaahay hanaga dhigo dad wax waliba ku adkaysto. rabadaanka fadligiisa ilaahay hanaga dhigo dad ku sabro wax waliba oo soo maro. sabarkii wanaagga iyo adkaysiga intaba ma ahan wax la iska heli kara walaalo. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi adduunyadu waa macaan cagaaran, eebbana wuu idinku reebay isagoo fiirinayo waxaad camal fashaan ee ka dhowrsada adduunyo kana dhowrsada ragow haweeney ileen fidno ugu horeysay bini Israa'iil waxaa ahayd haweeney. aayaduhuna waxay ku tusin dhowrka iyo diidmada xumaanta iyo in ciddii dan eebbe u camal fashto uu eebbe farash u furi, guushana ku dambaysiinin, iyo wanaag, adkaysi iyo sabar. allaahu akbar. maxaa ka wanaagsan intaas? maxaa ka wanaagsan? ilaahay hanoo kaso. ilaahay ayaan ka rajaynaynaa kuwa u dambaynayso wanaag, adkaysi iyo sabar iyo guul intaba kuwa u dambayso inuu ilaahay naga dhigo ayaan ka rajaynaynaa. walaalayaalow waxaan ka rajaynaynaa rabadaanka fadligiisa inuu ilaahay subxaana watacaala nagu barakeeyo. ilaahay qaluub wanaagsan naga dhex beero, ilaahay dad wanaagsan naga dhigo, ilaahay xaqana tusiyo, ilaahayna hanuuniyo. adduunyadu way macaan tahay, laakiin ilaahay subxaana watacaalaha nagama dhigo kuwa adduunyada hawadeeda raaco ee kuwa ilaahooda ka baqo, ilaahooda ku xiran, ilaahooda jecel. ilaahay hanaga dhigo. qof walba ilaaheeda way taqaana. qofaan ilaahay aqoon, qofaan ilaahay ka cabsan ma jiro. laakiin cabsada waa lagu kala horeeyaa, iimaankana waa lagu kala horeeyaa. ilaahay hana siiyo, hanagu irsaaqo iimaan dhammaystiran oo buuxo, akhlaaq iyo xishood iyo sharaf iyo ciso iyo karaamo. walaalayaal waddankeena aan u ducayno. ducadu wax badan ayay beddeshaa. haweeney ayaa waxay u maataa waqtigii nebi muuse alashaan ducadu inay wax beddesho ayaa idin sheegaya. waxay u maataa la nebi muuse u maata. markaasay dhahday nebi muuse ilaahada ii barya, dhahday inuu ilaahay awlaad siiyo. markaasuu ilaahu baryi, wuxuu dhahay ilaahow addoontaan awlaad siiyo. markaasuu dhahay ilaahay wuxuu dhahay nebi muuse usoo waxyooda wuxuu dhahay looxafuudka maku qorno naagtan inay awlaad dhasho. looxafuudka maku qorno. marka maanta xab iyo biyo aheed waa looxafuudka. qofkaan meeshu wuxuu maraayo kuma qorno. markaasuu wuu ka tegay. marka dabashuu ka dhahay haweeneydan waxba muusa sheegin. haddana waa u imaata maalin kale waxay dhahday ilaahayo nebi muuse ilaahada ii bari. marka muusa dhihin ilaah waa kuu bariyay, saasuu soo dhahay. muusa dhihin hayuu dhahay haddana ilaah u bariyay. ilaah wuxuu dhahay makuu sheegin inuu haweeneydan ma u qorin. maalintii dambe haddana way heshay. maalin dambe wuxuu arkay nebi muuse iyadoo cunug wadato arkay. markaasuu dhahay ilaahu wuxuu dhahay ilaahow haweeneyda waxay dhahday looxafuudka uguma qorno inay ilmo hesho.
laakiin cunugay wadataaye see wax u jiraan markaasuu dhahay yaa raxiim yaa raxmaan ayay tiri naxariisteed ayay ku heshay marka ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa ma laga quusto soomaalaay haasdhihinina waddankiina wuu burburo mashaakila ka jiro wax sooma noqonayo ma hagaagayo waxaas iska saara waddanka wuu hagaagaa maxaa isku hagaagi karaa idinka oo duceysay wuu ku hagaagi karaa soomaaliya ilaahu nabad nooga dhig ilaahu qaluubteena isku soo jeedi haddaa dhahno waxaan aaminsanaha soomaaliya inay hagaagayso annagana hagaagayno qaluubteena xumaanta wasaqda ka baxayso dad isjecel dad wanaagsan dad ilaahay dadka isku jecel dad diinta islaamka walaalo ku ah inaan noqonayno nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kulli muslim aqwa yacni muslimiinta kulligood walaalo waayo walaalka maan kan hooyada dhasho kan aabbaha dhala kaliya maaha qof kastoo islaana waa walaalkaaga laakiin qofaan islaan ahayn walaalkaaga ma noqon karo marka dad walaalaha oo isjecel oo isku qalub wanaagsan inaan noqono soomaaliya aan duceyno ilaahay soomaaliya nabad ha nooga dhigo ilaahay soomaaliya nabadeeda iyo sharafteeda iyo cisadeeda iyo karaamadeeda ilaahay ku soo cesho dadka soomaalida magaca soomaaliya wato way sharaf beeleen waddan gaale intay tageen sharaf beeleen magacoodii sharaftoodii shaatigooda dhulku ku dhacay ilaahay inuu soo cesho soomaaliya aan duceyno soomaaliya ilaahay nabad ha ka dhigo qaluubteena ilaahay nasaafi ha ka dhigo rabadaanka fadligiisa ilaahay subxaana watacaala ha nabad ha nagu siiyo ilaahay amni caama ilaahay noo soo dejiyo adduunka waxa lagu joogo waa nabad la-aanteeda waxba ma hagaagayaan ilaahay nabad hana siiyo walaalayaal meel kastoo dunida ka joogteen soomaaliya ha loo duceeyo soomaaliya way isbedesha hadeertaan maasha allah inta dhiman ilaaha noo dhammaystiro rabadaanka fadligiisa noogu dhammaystiro wasaqda iyo xumaanta ilaahay hanaga bixiyo ilaahay ha noo nadiifiyo dad nadiifa dad wanaagsan dad qaluub wanaagsan leh ilaahay noo soo reebo ilaahay subxaana watacaalaha wixii aan haleelayna waxay ahaatay ilaahay xaggiisa ayay ka ahaatay wixii aan qaldana waxay ka ahaatay naftayda iyo shaydaan naf iyo shaydaan ayaa nagu xariiro ilaahay subxaana watacaala kuwa ka adag naftooda iyo shaydaanka hanaga dhigo kuwa ilaahay subxaana watacaala taqwadiisa ku dara ilaahay ka cabsada ilaahay hanaga dhigo بالله التوفيق رمضان مبارك كل مسلم